الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعن أو ونكسن إذن أهانتين بميل والبود نقدا ونيسان أما نقلا سعوتان waxaad markale ku soo dhawaataan barnaamijka yaga bandhiga waxa uu ka koobayan laba xubnood oo kala xubinta maxaa cusub iyo xubinta ra'yiga dadweynaha xubinta maxaa cusub ayaan idinku soo gudbinaa dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhacay caalamka halka xubinta ra'yiga dadweynaha aad inoogu soo gudbisaan afkaarihiina kala gedisan idinkoo isticmaalaya baraha aynu bulshada ku leenahay sida Facebook iyo Twitter-ka sidoo kalena si toos ah u soo wacaya telefoonada kala gedisan ee muuqbaahiyaha uu leeyahay barnaamijkan ayaa waxaa daawataan laga bilaabo habeenka Isniinta ilaa iyo waliba habeenka Jimcaha iyadoona idinku soo gudbino waxyaabihii ugu dambeeyay ee barnaamijka wixii ugu dambeeyay ee cusbaa haddaba daawadayaal caawa waxaan guud ahaan barnaamijka ku lafa guri doonaa hadduu eebaha awoodda leh may uusan dhihin Soomaalida iyada u qaxday wadamada caalamka kala gedisan maxaa ay ka dhaxleen isla markaana ma yihiin dad tayadoodu ay sare jirto waxaana caawa barnaamijka marti ugu Yaasiin Maaxi Macallin oo siyaasi Soomaaliyeed waa qoraa wax ka qora arrimaha bulshada Soomaaliyeed waana xildhibaan heer gobol ee wadanka Sweden horena waxa uu uga mid noqday ciidamada booliska ammaanka iyo Sweden sidoo kalena waxa uu ahaa xildhibaan heer degmo haatanna waa murashax u taagan xilka madaxtinimada dalka Soomaaliya isla markaana ah gudoomiyaha xisbiga midnimada Soomaaliyeed ee fadhigiisu yahay wadanka Sweden ما حصل وهرين برامج كي قبندقة هذا ما سنكره جدًا مجا يجو أحمد لقاية أنت أنا برامج كيني أرمها كلا وجود قلين وكما مركه هراء ياسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم مركه هراء ما هاد أنا لسوق ويكرين أيان إذا كجا ما هاد نقايا أديك أو معناها أحمد لقاية iyo teamka Star TV network sida qiimaha iyo qaayaha badan ee aad fursadan i siisay waa tahay inta badan dadku waxay isweydiinayaan qofka caawa barnaamijka marti ku ah waa kuma adigoo taariikhdaada soo koobaya si bulshada ay wax badan uga ogaato aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay runtii aniga magacayga waxa la yiraahdaa Yaasiin Maaxi Macallin waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho sida runtii hooyaday mar walba waxay ii sheegtaa ayadoo maaragtay iga waramayso dhalashadeedii iyo caruurnimadeedii muxuu ahaa magaalada Muqdisho ayay ahayd sanadkiina wuxuu ahaa 1969kii sanadkaas oo ahaa sanad xambaarsan maaragtay siyaasad mug leh oo isbedel ummadii iyo shacabkii ay raadinayeen Generaal Maxamed Siyaad Bar Allah u naxariistay ayaa hogaaminaya asiga iyo military Afgambi kusoo afjar xukunkii xukuumadaha dawladda iyo rayidka ahaa waagaas jirtay sida aan soo yaalka taariikhda ku haay budugii guurkii labadeedii waalid aabahay Maaxi Macallin iyo hooyaday Hindiyo iyo alaasahooda farxadeed runtii waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho hooyaday aabahay oo ah dabaqad noloshooda oo ahayd heerkii dabaqada dhexe isla sanadkaas waxa uu dhashay Yaasiin Maaxi oo aniga ah runtii waxaan ku dhashay isbitaalka Martini isbitaalkaas waxa la aasaasay bilowgii 20-meedii qarnigii 20aad ee aan soo dhaafnay ayadoo loogu magac daray General Martini oo ahaa taliye ciidan oo Talyaani ah macna ahaan macnahana waagaasna caan ka ahaa markaas sanado badan colaado dheer kadibna waqtiga hadda la joogo isbitaalka Martini runtii waxaa ka muuqato darxumo oo hadda waxaa ku nool ciidamada naafada iyo qoysaskooda ayaa ku nool waa tahay heerarka kala duwanaa ee waxbarashada iyo meelaha aad ku soo kala qaadatay runtii muxuu ahaa dugsi quraan qof walba way soo martaa markii uu yar yahay runtii dugsiga quraanka ayaan aniga macallin bisbaas degmada Shibis ayaan muxuu ahaa wax ku soo bartay dugsiga quraan kadibna muxuu ahaa dugsigii hoose waxaan galay 14 Febraayo Shibis sidoo kale aniga waqtigii hore hooyaday aabahay muxuu ahaa way kala tageen anoo yar oo aan waxna garanaynin kadibna muxuu ahaa waxaan tagay aan u wareegay eedaday oo aabahay la dhalatay Xamar Jajab halkaas haddana waxbarashadeedii dugsiga hoose dhexe aan halkii aan ka sii waday
kadibna haddana mar labaad haddana waxaa usoo guuray degmada yaaqshiid xaggaasoo hooyaday haddana ay ku nooleed dugsigii sare ee general daaudan maxay ahaataa aan aydan wax ka dhiganayay isla markiina muxuu ah haddana waxaan mar labaad u guuray oo u wareegay aabbahay iyo degmada howlwadaag halkaasoo maaragtay muxuu ahaa dugsigii sare aan halkaas aan ku dhammaystay wixii ka dambeeyey dugsigii sare runtii waxay ahayd kubadda koleyga ayaan maxay ahayd u ciyaari jiray muxuu ahaa heer degmo ee degmada howlwadaag kadibna waxaan ku biiray gobolka banaadir oo aan difaacayay oo lambarka 9aad aan u qaatay heer gobol ahaan gobolka banaadir kadibna isla sanad kadib muxuu ahaa waxaan ku biiray naadigii muxuu ahaa heer koowaad ama seeri aada waxa loo yiraahdo oo maaragtay markay xiisada xumaato oo taageerayaasha mar walba waxay fili jireen ay sugi jireen lambarka 9aad ama lambarka 6aad oo aan u qaadi jiray naadiga badda laakiin meeshii kama maqneenin xidigaha oo aanan inkiraynin marnaba walaalkii cabdiqaadir xaaji daahir oo loo yaqaano shiiqa oo asiga kubaddana aad nooga xariifsanaa kubadda koleyga waagaasaan isla wada ciyaari jirna aniga iyo tiimkaas aabahay sidoo kale baha sporti aniga kasoo jeeda allahu naxariiste maaxi macalin maxamuud runtii wuxuu ahaa asigana tababara oo maaragtay qaybta la yidhaahdo kubadda koleyga dhinaca haweenka wuxuu ahaa tababaraha koowaad wiilashana wuxuu ahaa tababaraha labaad ayuu ahaa sanadaan ka hadlaynana waa 86 87 ayaan ka hadlaynaa waa tahay waxbarashadaadii kadib dalka burbur inteed aad runtii sidaad aad ka warhaysid waqtiyadii maaragtay 88 waxaa bilowday dagaal sokeeye oo gobolada waqooyi iyo waagaas kacaankii talada waqtigaas hayay dowladdii maxamed siyaad bare allah naxariistee ayaa maxay ahayd waxay bilaabeen in la raafo dadka dhalinyarada ahayd oo maaragtay dadkaas xaabo looga dhigo muxuu ahaa in ay la dagaalaan dad walaalahooda oo Soomaaliyeed hooyaday iyo aabahay runtii way ku dhiiran waayeen inay igu haayaan wadankii sidaas aawadeed waxay ii garteen inaan macnaha aragooda in macnaha inay i waayaan oo aniga aan maaragtay dibadda aan soo aado halkaas waxaan ka soo baxay aan soo aaday Saudi Arabia runtii wadanka Saudi Arabia markaan soo aadayay 88 dhamaadkeedii muxuu ahaa waxaan is lahaa wadankii mar dhow waad u laaban doontaa ilaan waad garan kartaa mar walbaba qof walbaba wadankiisii hooyo ayuu wax ku yahay marka sidaas aawadeed waxaan qiyaasayay sanad iyo 2 sanadood inaan wadankii aan ka maqnaanayo laakiin waxay arrintii ay qasabtay inaan maaragtay halkii aan joogay Saudi Arabia waa ka warhaysaa waa wadan boqortooya fursado badan oo maaragtay oo shaqo ah ayaan meeshii aniga isla markii ka raadiyay dad badan oo walaalahay iyo oo Soomaaliyeed ayana meeshii igaga horeeyay oo iga warhaayay ciyaarahaygii kubadda koleyga inaan xariif ku ahaa halkaas aan maxay ahayd kubaddii koleyga maaragtay qolooyin oo maaragtay shirkado ah ayaa maaragtay soo dalbaday kadibna marka waxaa dhacday xataa inaan ciyaarihii halkaas aan ka sii wato waxay ii fududeysay xataa isdhexgalkii halkii aan muxuu ahaay magaaladii Saudi Arabia ee ii fududeysay inaan si fudud aan shaqo ku helo anoo shaqadeyda wato ayaa haddana isla markii kubadda koleyga ciyaarahaygina halkaas aan ka sii waday oo xirfadeydii intaan joogo wadankana xirfad saas oo kale ayay ii ahayd anoo waxbarashadeydii iyo kubadda koleyna sidaas u ciyaari jiray waa tahay haatan markaan akhrinayna taariikh nololeedkaaga qayb ka mid ah waxaa muuqanaysaa in dhanka siyaasadda aad uga fardhuuneed goormaad ku biirta siyaasaddu runtii markaan kubadda koleyga halkii aan ka sii waday waxaa mar walbaba dhegteyd kusoo dhacaysay oo aan maqlaayay muxuu ahaa Soomaaliya inay mar ka sii dambeyso ay sii xumaanaysay marka sidaas aawadeed waxaan haddana shandadaheydii mar labaad aan soo rartay aan usoo hayaamay halkaas iyo maaragtay waqooyiga Yurub qaasatan wadanka Sweden runtii Sweden waa sidoo kale wadan boqortooyo way adag tahay isdhexgal waa wadan oo naga dhaqan iyo diin duwan runtii waxaa ayadan halkii aan ku qasbanaaday inaan luqadii halkaas aan maaragtay aan ku barto luqadii markaad baratid
waxaa haddana baranaysaa taariikh ahaan markaan taariikh ahaan iyo wixii aan baaray runtii waxay ii fududaaday sidii aan isdhexgal iyo halkaas sida aan ku samayn lahaa isla markii waxaan xiriir iyo la sameeyey kooxaha halkaas markaas ka dhisnaa deegaana markii hore lagaa siinaya markaa deegaankii aan helay kadibna muxuu ahaa kooxda kubadda koleyga kuwa kala iskuuga magaalo ii dhaweyd ayaa maxay ahayd xiriir la sameeyey kadibna ayagiya maaragtay aan cayaaro la bilaabo ayaga naftarkooda sidii runtii ahaydna aad iyo aad ay ii soo dhaweysay halkaasna waxaan kasii waday haddana xirfadeydii iyo isdhexgalkii waxaa ii fududaatay dadka swedishka siyaabo badan ayaa jirta oo maaragtay loo dhexgeli karin haddaadan marna dhinaca sportiga aadan kasoo gelin dhinaca siyaasadda aadan kasoo gelin meelna aadan kasoo gelin way adag tahay inaad maaragtay xiriir saaxiibtinimo oo dhow inaad la samaysid marka taas waxay ii fududaysa haddana inaan kubadda koleyga ee ii noqotay meel aan isdhexgal haddana markii aan halkaas aan ku sameynay asxaabo badan aan meeshii ku samaystay sida runtii si fiican ii soo dhaweeyay ilaa haddatana aan xiriir aad u dheer aan leenahay isla markiiba waxaa dhacday inaan kubadda koleyga waxaan arkay soomaali badan maaragtay soomaali badan ayaan waxaan arkay inay waddankii ay soo galeen marka sidaas aawadeeda haddana waxaan arkay qaxooti badan waagaas waxaa waddanka ku badnaa oo dagaal sokeeye ka socday waddanka ciraaq ciraaqa waddankaasa iyo soomaali badanaa waddankii soo gashay marka waxay u baahdeen isdhexgal iyo sida wax lagu sameyn lahaa sidaas aawadeed waxaa igu qasabtay marka inaan bulshadii aniga aan la noolaa inaan mathalaad u helo oo aan sidaas aawadeed aan u noqdo maaragtay siyaasi markaan arka baahi loo qabo dad u doodo xuquuqaha dadka maaragtay soo galootiga ma ahan just soomaali keliya laakiin sida runta ah waxaan aaminsanaa dadka soomaalida ah inaysan keliya aysan ahayn laakiin ay qaxooti aad u tiro badan ee markaas waagaas ay soo galayeen sidaas aawadeeda waxaan ku beeray xisbiga social dimuqraadiga ee waddankan hadda ka taliyo ee waddanka Sweden hadda ka taliyo runtii waxay ii ahayd ayada naftarkeeda fursad aad qaali u ah halkaas oo maaragtay markaad siyaasadda ku biiraysidna waa isdhexgalka meesha ugu sarreyso oo qofkii oo hamigiisa uu gaarsiisan karo 1999kii ayaa maxay ahayd xisbiga ii nomineer gareeyay inaan commissioner aan u noqdo qaybta hidaha iyo dhaqanka degmadaas aan deganahay kadibna 2002 ayaan maaragtay haddana nomination la igu sameeyey ama aan candidate ahaa baarlamaanka heer degmo macnaha deegaan ahaan ayaan halkaas marka la soo jaan qaaday soo galay 2002 2006 haddana sidoo kale maaragtay xisbiga haddana ii nomineer gareeyay inaan mar labaad haddana murashax aan u noqdo macnaha 2002 waa 4 sano waa mar ayaa maaragtay la qabtaa 2006 markaa haddana mar labaad ii nomineer gareeyay 2010kii haddana sidoo kale la ii nomineer gareeyay oo markiiba waa 4 sano haddana 2010kii markii aan haddana aan soo galay golaha deegaanka ayaa haddana mar kale la ii nomineer gareeyay oo macnaha 10 ilaa 14 mandate-kayga markaas runtii wuxuu ku ekaa waqtigaas hadda aan kuu sheegayo 2014 deegaan ahaan laakiin isla sanadkaas 2010 ayaan haddana 2014 sorry ayaan haddana waxaan ahaa murashax soo galay maxaa la yiraahdaa baarlamaanka gobolka marka heer degmo iyo heer gobol iyo heer qaran u dhisan yahay waddanka Sweden marka sidaas aawadeed degmada oo aan runtii 16 sanadood aan soo fadhiyay oo aan khibradeeda iyo aqoonteeda aan leeyahay waxyaabaha badan aniga aan soo bartay theory ahaan iyo practical ahaanba waxay tahay local governance-ga ama golaha deegaanka kadibna maxaan soo galay muxuu ahaa heer gobol ayaa haddana sidoo kale laakiin isla sanadahaas oo aan 2010 iyo 2014 sidoo kale mar walba waxaan ahaa nomination oo la ii sameynayay ama inaan u tartamo heer qaran waad dareemi kartaa dhul aad waqti waddankaagii ahayn inaad soo gasho waqti dhowna aad soo gashay ilaa ay heerkaasna aad ku gaarto within wax aan 20 sano dhamaynin waad dareemi kartaa juhdiga iyo barnaamijyadii howlaha aan gelinay waa tahay waxaan filayaa in dad badan ay ka faa'iideysteen isla markaana wax badan ay ka ogaadeen balse adigoo nin da'yar maxaa kugu qasbay inaad ku biirto siyaasadda Sweden
runtii siyaasadda ma ahan inaan aniga aan doontay siyaasadda ayada ay soo doontay siyaasadda naftarkeeda xagga dadka soomaalida aad iyo aad ay si qalad ah ayay u fahamsan yihiin siyaasad markii la yiraahdo waa siyaasadeyn waa wax la xadaa iyo waxyaalo la mid ah laakiin halkaas waxaa waaya bulshada ayaa u adeegaysaa baahi bulshada ay ii qabto iyo kalsooni ay ii qabaan dadkii swedishka ahaa iyo dadkaas oo aan matalaya oo dadkii swedish soomaalidii ha ugu badnaadeen iyo dadka kale qaxootiga ahaa ayaa igu kalifay inaan maaragtay aan u istaago sababtoo waxyaalo badan oo waxaa jirto oo runtii aniga igu dhaliyay inaan maaragtay aan u istaago oo aan u raadiyo xuquuqdeeda macnaha ma ahan inaad xuquuq raadinaysa adiga naftarkaaga waajibaada ku saaran dadkeena soomaaliyeedba waxaa saaran waajibaadaa saaran marka xuquuqdii oo loo raadinayo maxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ah ilaa ay haddeertaan sida runtii ah doodo badan aan ka socdo waddanka dadyooga kale iyo qaxootiga kale waxaa dhaqsi loogu ogolaadaa inay Swedish citizen ee hore ka qaataan within macnaha 5 sano qofka markuu joogo ama 4 sano markuu joogaba waxaa hore loogu ogolaadaa inuu baasaboorka Swedishka uu qaato laakiin Soomaali way ku adag tahay inay maaragtay ay qaataan muxuu ahaa dhalashada waxaa la siiyey 8 sanadood sababtoo 8 sanadood inuu qofka Soomaaliga oo sugo qofka kale oo qaxootiga ahna ka yimid maaragtay wadamada sida hadda aan ku sheegay Ciraaq iyo qolooyinka Kurdida iyo dhulkaas ka yimaadeen iyo Afghanistan iyo meelaha kale iyo Syria iyo hadda ka yimaadaan oo dhan waxa loo ogolaadaa 5 sanadood loo ogolaadaa marka taas waa waxyaabaha hadda aniga igu qasbay iyo shaqo la'aanta oo meeshii ku badatay oo dadkii Soomaaliyeed oo mar walba dhinac loo fiirinayo ay adag tahay dadkeenii sidii ugu sahlan aydan shaqo u helaysa marka baahi oo bulshada ay ii qabto ayay ahayd aniga marka maadaama aan ka maqanahay saaxadda siyaasadda waxaa adkaanayso in sida hadda maaragtay oo dadaalkeedaba aan wadnaan rajeynayna insha allahu tacaala 2018 in la ogolaan doono in qofka Soomaaliga 5 sano in lagu soo koobo isla markaasna macnaha haddana bulshadii waa arkaysaa inaan ka dhex muuqano meel say u taalo ayaa loola yaalaa maogtahay marka waa muhiim arrimaha aniga aan aaminsanahay in Soomaalida wadamada u hayaamay oo matagay oo ka doontay magangelyo iyo nabadgelyaba inay noo fududaato barnaamijyadaas marka alxamdulillah kalsooni aan ka haystay dadkii Swedishka waliba xisbiga social democratic ayaa nominate gareeyo ii yimid oo igu yiri bal ka waran haddii aad xisbiga aad la shaqaysido positionkaasna aan ku dhiibno marka dhibaatooyin badan oo waddanka oo ka dhacayo ayaa jira haddii saaxadda oo loogu doodayo sida waxaa jirto maadaama anaka dad muslimiin aan nahay cuntooyinka oo kale iskoolaadka nooma fiicno inaan cunno waxyaalaha ama qansiirka ama waxyaalahaas oo kale marka meelaha qaarkood iskoolaad waxaa jiro waddanka aniga Sweden aan ku noolnahay cuntada waa iska lacag la'aan waay marka qofka iskoolka uu dhiganayo carruurteena ay dhiganayso marka maadaama cunto oo qansiirna meesha taalo way adag tahay carruurteena inay marka ay cunaan marka maxay sameynayaan instead ay hilibkaas waxyaalahaas ay cuni lahaayeen waxay cunayaan ansalaato iyo waxyaalaha kale oo fudud ee maaragtay marka qudaarta meeshaas taalo marka taasa aydan naftarkeeda xataa waxaa u baahan tahay inaan lagu fadhiyo qaybta waxbarashada qaybta isboortiga qaybta hidaha iyo dhaqanka haddii ay noqoto masaajido meelahaas oo dhan haddii aad ka maqan tahay way adkaanaysaa bulshada iyo waa tahay intaad Sweden ku sugnayd ma siyaasadda kaliya ku koobnayd marka maya aniga runtii siyaasadda kaliya kuma koobnayn waxaan soo noqday sida aad ka warhaysid aan isleeyahay saldhigga booliska magaalada aan deganahay ayaga naftirkooda muxuu ahay waa ii yeereen oo maaragtay waxbarasho ahaan ayaa la ii diray kadibna sidaasaan maxay ahayd police officer aan halkaas ka noqday muddo 2 sanadood aan runtii ka shaqeynayay runtii aad iyo aad dadka Soomaaliyeedna aad ay ugu farxeen arrimaha nabadgelyada anigana waxay ii ahayd experience iyo khibrad oo aan runtii aan la soo koobi karnay farxadeedana aad u weyneed waxaa kaloo jirto shakhsiyan aniga waxaan ka shaqeynayay shirkad aniga aan leeyahay sanadahan hadda ugu dambeeyay laakiin ka hor waxaan ahaa information officer iyo coordinator magaalada hab isdhexgalka magaalada aniga aan deganaa waxaan ka imid aniga magaalo ay ku nooshahay 35,000 oo dad ay ku nool yihiin meeshaas aniga aan ka soo jeedaa oo la yiraahdo Katrina Holm meeshaas isla markiina sidoo kale waxaa ahaa macallin iskool oo maaragtay aan ka saacidi jiray dadka Soomaaliyeed
sidii luqadeedii hooyo oo kale ay u baran lahaayeen sidii oo dad dhalinyarada markay yar yihiin wadamada ay kasoo qaxeen markay yimaadaan waddanka waxay u baahan yihiin maaragtay inay wax ka fahmaan bulshada iyo society-ga ay ku dhex nool yihiin taasoo kalena ayadana waxyaabo badan ayaan kaga sameeyey waxaan kaloo sameeyey buugaag waxaan ahaa aniga qoraa ilaa iyo waxaan qoray 9 buug waxyaabaha igu kalifay buugaagtaas inaan qoro ayadana tarkeeda waxay ahayd barnaamijyada hadda aniga aan kuu sheegayo oo baahida badan oo dadkii aanan lahaynin buugaag oo maaragtay la hormariyay ilan waxaad moodaa akademiyada waqti hore ayay naga seexatay waxaan ka hadlayaa aniga waqtiyada 1990 iyo 9 iyo waxyaalahaasaan ka hadlayaa buugga iigu horeeyay aniga aan qoray waxaa la yidhahdaa sheeke xariirooyinka oo carruurta oo kale looga sheekeynayo marba hidahaada iyo dhaqankaaga iyo diintaada mar walba waa lagama maarmaan meel walba anaga aan joogno waa tahay waxaad noo sheegtay inaad qayb ka noqotay ciidamada ammaanka ee magaalada aad ku nooleyd intii aad ku guda jirtay hawshaasi kiisaskii ama dacwadihii ugu dhibka badnaa ee dhanka soomaalida idinka soo maray maxaa ka mid ah runtii soomaali kaliya ma ahayn barnaamijyadii iyo howlihii anaga iyo kiisaska aan mar walba u qaadeen majority dadka soomaaliya hadda soomaalida hadday soo badatay waxaa lagu qiyaasaa ilaa iyo 70,000 oo soomaali ah inay degan tahay waddankii Sweden haddeertaan laakiin waqtiyada aan ka hadlaayo 2006 aniga markaan booliska ka mid noqday runtii waxay ahayd waqtigaas soomaalida kuma badnayn kiisaskoodana ma badnayn runtii laakiin dacwooyinkoodii iyo waxyaalahaas laakiin sida kale oo guud maaragtay farxaday noo ahayd maaragtay qof booliis oo ka shaqeeyo saldhigga booliiska waxaa fududaanayso qofkii maaragtay communicationkii wada xiriirkii ayaa fududaanayso runtii anigana mar walba waxaa muhiim ah oo aniga aan doodeenin ay tahay mar walba bulshada inay iska dhex arki karto saaxadda ama siyaasadda hadday noqoto arrimaha amniga hadday noqoto arrimaha shaqada hadday noqoto mar walbaba meel walba waxaa loo baahan yahay inaan ka muuqano marka taas naftirkeeda waxay noo ahayd farxad weyn laakiin wax culays ah oo soomaalida ay kaga duwaneyd dadka kale habeeraatee maysan jirin waa tahay waxaad haysataa sida hadda sheegtayba dhalasho ay waddanka Sweden shaqooyin kala duwana waad ka soo qabatay maxaa xilligan kugu dhaliyay in siyaasadda Soomaaliya aad soo sharaxdo okay runtii arinta horena iigu dhalisay tii Sweden inaan macnaha siyaasadda fiiri waxaa fudud inaan Sweden wax ka noqdo waxaa adag inaan waddankii aan Soomaaliyeed aniga aan wax ka noqdo sidaas aawadeed waxaan is leeyahay arrimaha Soomaaliya runtii wax weyn ayay ii ahayd oo aad iyo aad u qurux badan ayay ii ahayd inaan macnaha aniga aan ka mid noqdo siyaasiyiinta iyo musharaxiinta ayada naftirkeeda baahi oo runtii aad iyo aad u weyn ayaa ka jirta waddankii sida aad ka warhayso waddankeena waxaa ka jira wax la yidhahdo 4.5 4.5 in loo qeybiyey runtii arrimahaasoo dhan aniga waxaan aaminsanahay inaysan sax ahayn waxyaabaha aniga igu kalifaayo oo maanta aan is leeyahay waxaan meeshii ka aas-aasnay xisbi oo la yidhahdo xisbiga midnimada bulshada Soomaaliyeed oo aniga hadda aniga guddoomiye u ahay Somali Social Unity Party markaan aragnay baahida waddanka ka jirto markaan aragnay inaysan sax ahayn habka iyo barnaamijyada iyo hadda sida wax loo wado 14 sanadood ama 14 jeerna la qabtay shir dib u heshiisiin runtii waxaa arki kartaa inaysan sax ahayn waddanka in uu u baahan yahay in laga weeciyo dhinacaas maxaa la yidhahdaa qabeeliga ama qabiilka oo la aado nation building macnaha inaan qarannimo aan dhisana dadkeeni waxaa muhiim ah in la kala saaro qaran iyo qabiil isma qaadi karaan qaran qabiil ku dhis soo quusasho ma ah waxaa jirto adeerkay Cabdulla Raag Taraawila marka hadda ka hor wuxuu yiri Soomaalidu dareen ma leh darxumada qabiilka dulli iyo qandaaxish xamdi meesha laga rabay xooli bay ku marayaan ruux xariirtu jaban tahay xagashayga ka bayaan ninka si wada wax loo xal ugu xeel badana xaaji hebel la leeyahay waad dareemi kartaa marka haddii aan qabiilka iyo barnaamijyadan aan ku sii jirno in muddo ah inaan faceen iyo dadkeeni aan aan ka hari doono sidaas aawadeed xisbiga midnimada bulshada Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan dadkeeni u bayaanino oo aan ka baxno barnaamijyadan ideology-ga iyo fikradaha iyo afkaaraha in la aado dhalinyarada lagu wacyigeliyo meel loogu soo wada jeesto barnaamijkan nadilooday oo 14 jeer dib u heshiisiin lagu qabanayo ilaa haddana wax lagu qabanayo laakiin waxa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala hadiis ah in aan rajeynayno haddii wixii ka dambeeyay doorashadan kadib maadaama hadda aan ognahay dib inay u dhacday 2018 waxaa la leeyahay
in qof walba oo xildhibaan ah oo hadda ka tirsan baarlamaanka ama ka mid noqon doona baarlamaanka inay ku biiraan xisbiyo waxaa la aadi doonaa marka xisbiyaa la aadi doonaa asxaabaa la aadi doonaa taas naftarkeeda anaga waynu farxad gelinaysaa maadaama aan nahay xisbiga runta midnimada bulshada soomaaliyeed horumarkiisa iyo wanaagiisa iyo quruxdiisa aan hadda anaga aan raajinayno waa tahay waayadii dambe waxaa muuqanaysa wixii ka dambeeyey 2012 markii la doortay dowladda haatan ku meel gaarka ka baxdo isla markaana heshay aqoonsiga dowladnimo siyaasiyiin badan baa xisbiyo samaystay amaba shakhsi ha ahaado amaba koox ha ahaato muxuu kaga duwan yahay marka axsaabta siyaasadeed xisbigiin runtii xisbiyada wuxuu kaga duwan yahay waxyaaba waxaan jirta oo caddeemo ah itusi oo itaabsi sheeko la yiraahdo ayaa jirta oo runtii aniga waxaan aaminsanahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin haddaad run sheegaysiin la imaada burhaantiin iyo waxyaabaha caddeynaya waa ku mahadsan tahay macnaha su-aashaas inaa i weydiiso maxaa aniga dadka kale aan kaga duwanahay walow aan waxba aan kaga duwanayn laakiin ay muhiim tahay inaan waxyaabihii aan cadeyno anaga xisbigeena waxaa la aasaasay 2004 xisbigeeda waxaa xisbiga kaga duwanaya iyo xisbiyada kale 2004 waad dareemi kartaa 2004 2009 doorashaa dhacday 4.5 wax lagu qaybsaday 2012 doorashaa dhacday 4.5 wax lagu qaybsanayay ilaa ay haddeertaan 2016 lagu jira 4.5 wax lagu qaybsanayo runtii aniga waxay ii tahay farxad 2004 ayaan fikirnay inaan afkaar la nimaano nafsadaada waxa ay jeceshahay nafta walaalkaa la jeclow taas waayo tan aniga aan aaminsanahay aan kaga duwanahay waxaa jirto assessment iyo baaritaan ay sameeyeen NDI National Democratic Institute oo halkan macnaha ka dhisnaa jirtay oo tababaro siiso xisbiyada iyo baarlamaanka iyo maaragtay dawladda ayagana kaadiriinteena iyo dadkeena inoo tababari jirto naga warhaysay assessmentiga ay sameysay wuxuu noqday xisbiyada ugu horeeya SSUB xisbiga midnimada bulshada Soomaaliyeed inuu noqdo ama uu ahaa xisbiyada ugu horeeyay dagaal sokeeyay kadib markii dagaal sokeeyay kadib laga soo noqday wuxuu noqday xisbiyada ugu horeeyay oo maaragtay oo ka hirgala waddanka Soomaaliya ilaa hadda dada hadda xisbiyo sameysanayo sanada xisbiyada lagu sameysanayo runtii waxaan halkan u nimid ayada naftirkeedana waad la socotaa oo maaragtay barnaamijka la yiraahdo Kenya ayaan hadda waxaan u joogaa 2 maalmood shir noo dhacay oo aan Soomaali oo xisbiga kamid oo members ah oo xildhibaano leh wasiiro leh oo gobolada ka kala yimaado xildhibaano gobolada hadda ka kala yimaado isugu yimid halkan 4 xildhibaan aan ka keenna maaragtay waddanka Sweden si ay tababar iyo barnaamij iyo howlo beeshan noogu sameeyaan waa tahay aad baad u mahadsan tahay socdaalka Kenya dib ayaan ugu soo noqon doonaa haatan waxaad ku soo dhawaataan daawadayaal qodobada warka iyaga ugu door karoon oo diyaar u yahay Maxamed Cibaar Diiriye السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن وعن أو وناكسن إذا لهانتين بميل والبض نقد داوانيسان خيارتين على صعطاي كسو دوادا قضبضا وركا يغا وقدور كرون baarlamaanka dalka Kenya oo ansixiyay qodobada wax ka bedelka doorashada iyadoo muran badan uu hareeyay kalfadhigaas Raila Odinga, we know your game. Some of us, we have been with you in this game. Exactly. maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland oo soo bandhigay rag ay sheegeen inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab nimankaas oo la soo galay 2 qori oo AK-47 iyo qasnadahooda iyo 14 askari oo ka tirsan ciidamada Turkiga oo lagu dilay dalka Syria qodobadaas iyo kuwa kale oo aad u xiiso badan ayaad ku daawan doontaan warkayaga hadduu allaha awood leh yiraahdo marka saacada geeska Afrika ay soo gaarto 9 fiidnimaha saacaate aan dib idinkugu celiyo barnaamijka bandhiga iyo Axmed Isaaq Cabdi Axmed Laqaaye
aad iyo aad ayuu umahadsan yahay wariyahayaga maxamed cibaar diiriye oo inala socodsiinayay qodobada warkayaga ugu doorka roona daawan doontaan gorsheegtadu marka ay soo istaagto 9 fiidnimo hadduu eebaha goodile maya uusan dhihin daawadayaal xubintii hore ee maxaa cusub halkaas aan uga gudubna haatanna kusoo dhawaada xubinta ra'yiga dadweynaha hadduu eebaha agoodile maya uusan dhihin guud ahaan daawadayaal caawa waxaan barnaamijkayaga kaga hadlaynay soomaalida qurba joogta iyo waxyaabihii ay ka faa'iideen waxaana barnaamijka marti iigu ahaa yaasiin maaxi macalim oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed isla markaana ah siyaasi waayadii dambe si aada uga soo caanbaxay waddanka Sweden haatanna u taagan murashaxa xilka madaxtinimada ee dalka Soomaaliya marka la soo dhawo yaasiin aad u mahadsantahay bal waxaad inoo bidhaamisaa socdaalkaagii maadaama adigu aad sheegtay inaad reer Sweden tahay qurbahaad ku nooleed socdaalkaagii Kenya runtii ma ku mahadsantahay waxaan rabaa inaan in yar aan ka hormariyo oo arrinta ku saabsaneed arrinta Soomaaliya iyo mashraxnimadeedii iyo baahida meeshii jirtay waxaa jirtan iyo waxyaalo badan oo runtii dadka Soomaaliyeed ay ilowsan yihiin badanaa laakiin aniga waxaan hal abuur ayaan ahay waxaan ku sheegaa kelmadahaas maaragtay hab yar oo qurux badan inta doqon fariid yahay dabaalna wax garid yahay dambiilana garsoor yahay inaan tiriyo deelay dareenkayga ma ogolo marka dareemi kartaa qofkii oo dambiilihiina maanta inuu wadankii nooga talinayo ama waxyaalo lamid arrinta ku saabsan haddaan usoo laabto dhinaca Sweden iyo socdaalkii Kenya runtii waxay ahayd xisbigaas midnimada bulshada Soomaaliyeed SSUP Somali Social Unity Party ayaa wuxuu partnership oo la helay inuu la shaqeeyo xisbiyada ku mabda'a ah xisbiga waa xisbi social democrat waa dareemi kartaa social waa arrimo bulsho dimuqraadina waa arrimaha dimuqraadiyadda ayaa waxaa la mataaneeyey macnaha xisbiga midnimada bulshada Soomaaliyeed iyo barnaamijkeeda mataaneyntaas waxay ayada naftirkeeda inoo dhashay inaan progressive alliance wax la yiraahdo socialist international barnaamij kale ay yiraahdaan oo aan mataana aan ayaga naftirkooda aan la nahay ayaa waxay noo sahashay in ay tababaro iyo barnaamijyo sida xisbiga loo horumarin lahaa iyo baahida ka jirto waddanka Africa in loo baahan yahay maaragtay political parties maadaama Soomaaliya hadda ay aadi doonto barnaamij xisbiyo badan oo laga bixi doono barnaamijkan qabaliga ama 4.5 of 4.5 oo loo qaybshay maaragtay dadkii walaalaheen Soomaaliyeed oo baarlamaanka sidaas loogu wada qaybshay imaanshahaas aan nimaanay waxaan 4 qofood waxa iga soo raacday marka waddanka Sweden oo Swedish ah Jens Urberg nin oday oo yiraahdo asigana oo ahaan jiray mar wasiir hore isla markaana ah muxuu ahaayay isla markaasna hadda ah general secretary oo maaragtay Olof Palme Center oo foundation oo lacagaha hadda barnaamijyada iyo howlaha noo soo ogolaatay inaan barnaamij ku qabanno waxaa kaloo nala socday Anders inay yiraahdaan oo xildhibaan ah sidoo kale waxaa nala socday 2 qofood kale oo ayagana hay'adda international centerka ee Olof Palme ka socday afartoodaas waxaa weheliyay Soomaali oo nooga timid ayadana Soomaaliya oo macnaha xisbiga memberka ah waxaan sidaan hore kugu sheegay 2004 ilaa waqtiga maanta xisbiga intaas oo soo shaqeynayay ka warhaayay markiisii ugu horeysay ma ahan inuu Afrika u yimid laakiin markeenii ugu horeysay waxay 2015 aan ku qabsanay shirkeenii ugu weyn magaalada Muqdisho kadibna marka hadda waxay noqotay inaan markatay dadka oo wakiilada gobolada noo kala deganaa inaan ayaga naftirkooda iskugu yeerno warbixino ku kala qaadano yaa ka yimid gobolada xagee goboladaysa laga kala yimid Puntland waxaa nooga timid 2 qofood galmudug waxaa nooga timid qof qolooyinka kale muxuu ahaay South West ama Koonfur Galbeed waxaa nooga yimid qof aan nooga timid Kismaayo qof aan nooga timid Hirshabelle waxaa nooga yimid muxuu ahaay xildhibaano ayagan oo macnaha ka tirsan noo mathalay ayaa ayagana ka yimid ururka wuxuu leeyahay sidoo kale youth wing iyo women wing macnaha garabka haweenka iyo garabka dhalinyarada ayuu leeyahay xisbiga marka ayagana way ka soo qayb galeen runtii waxay noo ahayd farxad 3daas maalmood ama 2daas maalmood oo workshop ka socday aad ay runtii ula dhaceen dadkii aqoon badan aan ka kororsanay dadka walaalaheen Swedish noogu yimid si hawsheenii maaragtay aan u sii fulino ayagana dib ay u laabteen hadda waddanka maadaama dib loogu laabtay waxaa la rabaa marka inaan hawshii halkii laga sii qaado waxaan rajeynaynaa insha Allah tacaala socdaalka inuusan halkan anigana iigu sinaan doonin haddii Ilaahay yiraahdo waxaan rabaa
inaan goordhow aan tegi doono magaalada muqdisho laakiin marba haddii hadda lasoo sheegayo inay doorashadii dib u dhacayso waxaad moodaa inaan xoogaa iyadana tirkeeda inaan halkan ku hakan doono oo aan rajaynayo markii guddoomiyaha baarlamaanka oo kale la doorto iyo guddoonka baarlamaanka la doorto ayagaa noo sheegi doono halkii iyo meeshii aan aadi doono iyo waqtigii doorashada ay noo dhici doonto. waa tahay ma markii kugu horreysay aad madaxnimo isu soo sharaxdayba? maya ma ahaynin 2012 ayaa aniga murashax ahaa waxaa jirtay wax la yiraahdo coalition oo dadka hadda ay u yaqaanaan ururada oo isbedel doonka oo ay ku wada midoobeen musharaxiin macnaha kan waxaa ka horreeyay 2012 ayaan maxay ahayd tood aniga murasharaxnimadeydii ayaan iclaamiyey marka 2012 waxaan imaaday magaalada muqdisho waxaa la aasaasay wax la yiraahdo National Partnership for Change macnaha ururka isbedel doonka ayaa meeshii laga sameeyey waxaa noogu horreeyay oo runtii oo ka mid ahaa mudane xasan sheekh maxamuud oo maaragtay aasaasaha barnaamijkaas ka mid ahaa 2012 cabdiraxmaan cabdishakuur axmed ismaaciil samatar waxaa ka mid ahaa xuseen khaliif xaaji maxamed yaasiin waxaa ka mid ahaa gacmo dheere waxaa ka mid ahaa dad aad u tiro badan oo runtii halkaan aan kusoo koobi karin Mr Fish ah ka mid ah asigana tarkiis oo musharax waagaas ahaa waxay mudane saacid Dr Saacid oo asigana prime minister ka noqday dowladdii 2012 markii ku guuleysan isbedel doonkeena runtii bilowgeenii hore waxaa ahayn 13 qofood ayaan ku bilaabnay xisbigii maxay ahayd isu tagaas ururada ka dambe waxaan noqonay 22 ilaahay subxaanahu wa tacaala mahadiisa meeshaas waxaa ka soo baxay isbedel doonka xasan sheekh maxamuud ka soo baxay oo madaxweyne ka noqday haddana wadankii madax u ah sidoo kale isbedel doonka waxaa ka soo baxay mudane saacid shadoon ayaa ka soo baxay oo asiga naftarkiisa isbedelka wax ka shaqeeyay hadda qofka gobolka banaadir hadda fadhiyo sheekh yuusuf madaala ayaa asiga naftarkiisa ka mid ah xubnihii waagaas u tartamaya waa dareemi kartaa dad isbedel doon ah inay meeshii ay ka soo baxeen oo halkaas aniga marka faa'iidadii iyo experience iyo khibradda aan ka helay ayaa haddana mar kale iyo mar walba waxay igu dhiirigelinaysaa inaan u istaago madaxtinimadana ilaahay uun baa baxsho meel dheerna inaysan xataa aysan naga jirin runtii u baahan tahay juhdi iyo dadaal in la gelsho. waa tahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku nool wadamada reer galbeedka horumar la taaban kara ayay ka gaareen arrimaha siyaasadda ee wadamadaasi ay ku nool yihiin haddana waxaa muuqanaysa in gudaha dalka Soomaaliya ay ku fashilmeen maxay tahay sababta marka keenayso runtii waxaa jiro cabsi badan ayaa jirto qofka dibadda ka imaaday si kale ayaa macnaha la moodaa laakiin alxamdulillah waxaa ilaahay ugu mahadinaynaa marba markasii dambaysana dad badan ay kusoo baxayaan heer degmo heer gobol heer qaran ayaa macnaha loo tartamayo Soomaali ayaa ku jirto Sweden oo heer qaran ah 2010 waxaa la doortay ilaa 3 oo xildhibaan oo soo fadhiisteen maxaa la yiraahdaa bal fiiri mar haddaad halkaas ka guulaysid way fududahay halkaan inaan maxay ahayd aanan lagu fashilmin oo horena bahashi loo wado laakiin is-aaminaadi ayaa meeshii ka maqan oo dadkii maaragtay shacabigii waxaa la rabaa inay aaminaan qofkan waxa fashilaada wax kalena ma keenayo waxaa keenaya isleeyahay hidihii dhaqankii iyo wixii oo iska hor imaanayo anaga waxaan nahay dad transparency ah oo macnaha waxyaabahooda ay cadcad yihiin macnaha oo tusi oo taabsi aanan ahaynin wadankii hadda sida aad ka warhayso macnaha corruptionkii iyo waxyaabaha anaga aan diidana oo aan ka soo horjeedno waa waxyaalahaas marka waxyaalahaasna waxay keenayaan conflict of interest aydan tarkeeda keeni kartaa waxaan rabnaa wadankii in loo dhaqaajiyo maaragtay wado hagaagsan marka runtii fashil badan ma imaan dad badan oo hadda waa aragtay Umar Cabdirashiid 2 jeer oo kusoo noqday dawladdii wuxuu ka yimid dibadda ka yimid waxaa aaminsanahay walaalkay Cabdiwali Gaas madaxweyne Puntland ka yahay waa arkaysaa asiga naftarkiisa dibadda ka yimid wax badan aan kusoo kordhinay shalay meesha ay wadanka uu joogay maanta ma joogo waqtigan ka cararayay 88 iyo maanta differentigii farqiga weyn u dhaxeeyo waa dareemi kartaa aqoonta iyo experience-iga hadda aniga local governments 16 sanadood ayaan maxay ahayd waxaan u ahay khibraddeeda iyo aqoonteeda aan u leeyahay
marka waxaa wanaagsan dadkaas oo kale iyo dadkii oo maaragtay rabaan waddanka inay isbeddel iyo wanaag iyo qurux ee meesha ay ku keenaan in lasoo xusho oo meeshaasna waddankaas hadduu ilaah yiraahdo aan meel wanaagsan oo qurux badan aan u hoyno waxyaabaha aniga hadda xisbiga aan u aas-aasayna ma ahan geed runtii looma abuurto inaa mirihiis adiga aada cunaysid laakiin iyo ina adiga maanta aada harsanaysid waxaa loo abuura waxay tahay mustaqbalka fog in dadka jiilka iyo jiilasha naga dambeeya inay wax wanaagsan oo qurux badan aan ugu tahay noqoto waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan ognahay dalka Soomaaliya in muddo badan uu burbursan yahay oo ku dhawaad 24 sano ay ku siman tahay hay'adihii dawliga naftirkooda ma dhamaystirno haddii aad adigu hoggaan ka qabato maxaa ku qorshaysan inaad ka qabato dalka runtii waa wax iska sahlan waxaa la sameeyey road map waxaa jira hadda 23 qodob oo arrimaha Soomaaliya hadda hortaagan kow constitutionka waddanka in la hagaajiyo oo mar walba waa laga hadlayaa waagii Cabdullaahi Yuusuf Allah u naxariistay yaa laga hadli jiray constitutionka mar walba waa nagu soo noqdaa ama dastuurka dalka waa in loo helaa inta la turxaan bixiyo maaragtay la hagaajiyo codna loo qaado kaasna lagu dhaqmo waa kow waa constitutionka waa mar walba waxaa laga hadlaa nabadgelyada laga hadlaa oo aydan naftirkeeda waa wax lagama maarmaan waxaa laga hadlaa maxaa la yiraahdaa dawlad wanaag ayaa laga hadlaa haddaysan imaanin dawlad wanaag runtii ma soconayso social justice wax la yiraahdo jirto maaragtay bulshada in loo cadaalo falo ama arrimaha bulshada in la horumariyo sida caafimaadka waxbarashada labada ugu aas-aasan waad dareemi kartaa waa labadaas waxyaabaha anaga aan wadamadeena hadda aniga aan ka imid Sweden runtii waxaa waaye waxaan aaminsanahay inay labada saldhig ay u yihiin dadkii ma awoodaan caafimaad oo lacag la'aan dadkii ma awoodaan waxbarasho oo lacag la'aan marka waxyaabaha aniga iigu horeeyo oo badanaa looga hadlayo waxay tahay waxbarasho oo lacag la'aan inay dhallinyaradeeni iyo dadkeeni ay helaan dadka badankood ma awoodaan maanta waad aragtay wixii dhan waxaa laga dhigay private laga dhigay iskoolaadkii waa private caafimaadkii waa private marka dawladda maxay leedahay waxaa la leeyahay hadda dawladdii waxbay qabataa ama dawladdu waxbay samaysaa aniga dawladda aan rabo waxaa waa wax la wada lahaasho danta guud in la wada leeyahay inaan la soo celsho waxyaabaha aniga social arrimaha bulshada ii keenayo xisbiga iyo mabaadiida aniga aan aaminsanahay qofka kale oo walaalkay oo musharaxa aan kaga duwanaa waxay tahay inuu ay aad u xoojinayaan private sectorka waa ilaa iyo 80% in wixii private laga dhigo laakiin 20% in ay u harto dawladda marka maxaa dawlad ma loo baahan yahay maanta waddanka waxaa arkaysaa dhismaha ka socdo yaas maamuloy shacabkiyaa kacay shacabkiyaa hawshoodii wataan shacabkiyaa horumarka samaynoy shacabkiyaa guryihii dhisanoy shacabkiyaa wixii ay awoodii la rabay inay qabato dawladdii ayaa shacabkii qabanayaan marka aniga waxaan aaminsanahay inaan shacabkii horta aan u celino awoodda inay ayaga wax soo doortaan ay noqoto qof iyo codkiisa waa waxyaabaha kow anaka aan rabnay inay noo hergasho hadduu ilaah yiraahdo oo ayana qayb ka mid ah ay arrimahaas ay tahay arrimaha internationalka xiriirka oo maaragtay caalamiga naftirkiisana waa wax lagama maarmaan oo muhiim ah labadan wadan oo dariska nala ah iska dhaaf waddanka Djibouti macnaha dad daris oo nala dhashay oo walaalaan nahay moogta laakiin Kenya iyo Ethiopia weligeed yaa la had maxay ahayd xuduudan iyo maxaa la darisnimadan meel aan ku kala dhaqaaqayna ma laha waxaa aad iyo aad u muhiimsan inaan labadaas wadan oo dariska aan nahay in si wanaagsan oo qurux badan loola fadhiisto si serious ah oo discussion fiican loo wada galo oo wadankii ayaga naftirkooda dana ugu jirto Soomaaliya oo dhibaato gaartay Kenya dhibaato gaartay Soomaaliya oo dhibaato gaartay Ethiopia dhib soo gaaray runtii Soomaaliya horumar gaartayna Kenya horumar gaartay waxyaalo badan ayaa aniga aan aaminsanahay inay waxyaalaha ugu muhiimsan ay tahay waxbarasho oo lacag la'aan arrimaha caafimaadka oo lacag la'aan muxuu ahaa transparency dawlad wanaag inay meesha jiraan institutionada inay dhisan yihiin dastuurkii inay sidaas oo kale loo soo hagaajiyo international aan meel dhaadheerna aan laga bilaabino gobolka labada gobol laga sameeyo arrimaha dib u heshiisiinta waa wax muhiim ah aniga aan naftirkayga aaminsanahay dadka horena u yiri iga horeeyay ay mar walbana ay la dhacayaan ay ku dadaalayaan sidii loo heli lahaa maaragtay dib u heshiisiin dhab ah runtii dib u heshiisiinna waxay mar walba ka bilaabataa heer degmo iyo heer tuulo ay ka bilaabataa barnaamijyada hadda waxaa laga bilaabay koraa laga bilaabay qaranaa lasoo dhisay waxaa la yimid hadda heer gobolaa la yimid waxaan joognaa haddii ilaah yiraahdo inaan tegi doono heer degmo iyo heer tuulo inaan tegi doono
marka waxaa la joogaan isla aniga naftarkeyga waqtigeyga ma aragtay oo aan ama waqtigeena oo xisbiyada badan markay isugu yimaadaan oo coalition samaysan doona haddii la yiraahdo wanaag iyo qurux badan aan u rajeynayno waddanka Soomaaliya haddii la yiraahdo waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay sida wanaagsaneed ee bulshada uga jaahil bixinayso su'aalaha aan ku weydiino waxaa jiro in murashaxiin badan ay soo sharaxayaan sanad walba ama mar walba oo doorasho la qabanayo haddana aysan ka dhex muuqanayn maxay tahay sababahaas runtii waxyaabaha ugu muhiimsan meeshaan waxay tahay in la garto waxaan rajeynaynaa insha Allah tacaala ama madaxweynaha waddankeena hadda joogo xasan sheekh maxamuud inuu sii joogo iyo haddii uu madaxweyne kale uu noo yimaado waxaan ka rajeynaynaa madaxweynayaashaas inay garantii siiyaan dadka oo targetka ah ma aragtay ama madaxtinimada ha raadiyaano ama wasiiro ha noqdaano ama xildhibaano ha noqdaano ilaaladooda niyahow waa dhibaato waa dareemi kartaa marka dawladdiina ma amaanadeeda ma qaadi karto maxaa dadkii oo dibaddeena hadda aniga aan rab haddaan waddanka hadda aan raba inaan tago waa inaan aniga jeebkayga iska masruufaa ilaaladeeda inaan aniga samaysta jeebkayga waa inaan aniga wax walba aan ka baxshaa meeshii laga rabay inay protection noo samayso dawladda dadka protectionka loo sameynayna way og tahay adduunyada runtii waxaa jiro qofka protectionkiisa ilaaladiisa inay garantii ay siiso dawladda markaas jirto marka waxaan ka xumahay runtii inay dawladdeena ay garan weyso arrimahaas sidaas aawadeed waxaa keenta maaragtay dadkii maanta musharaxiinta ahaa ilaahayow 22 iyo 20 iyo waxbaa lagu qiyaasayaa in fursad la siiyo inay sii joogaan waddankooda waxaysan ku sii joogi karin aysan helin protectionkaas iyo ilaaladaas gaarka ah aysan dawladda siinaynin marka qofku wuxuu ku qasban yahay inuu waddankii uu ka soo baxo oo meel nabadgelyo leh uu ku sii joogo taasaana keenayso waddanka dadka badankooda inay dib ay uga noqdaan laakiin absolutely waa jeclaan lahayn hadda fursadda aan leenahay waxay tahay wanaag iyo quruxay u tahay dawladda hadda fadhida inay ilaaliso dadkaas musharaxiinta hadday noqoto madaxweynayaashii haddeertaan ugu dambeeyey oo meeshii ka degay fursadda in la siiyo shalay fursaddan ma haysanin maanta ilaahay subxaana watacaala ku siiyo بريتول إلهي سبحانه وتعالى كقاعدة بريتول محرنا قف كاس كلا ولكن إنه أصيغنا أو لوجو فائدة أنا وحن حوجي نصار دونا إن شاء الله تعالى إن أن هلنا مدحونا ياش حد الجو يكوي هراء نول إن ودن قاد أنت كسر لابتان فرصة الله سي جوري يكون ولادان إلى الله ده الله سي أقانت هذا experience هراء سقطين لوجو فائدة ودنك سي أو ودنك أو هرمر أو هو جاره وحاجة تروح لي هذا اللايبراري ayaa jirta buugaaga ma aragtay dadkeena badankooda ay wax ka akhristaan laakiin waxaa la sameyn karaa human library ma u baahnid qof oo expert oo waxa haysta oo ma aragtay dhinaca dhaqaalaha madaxweyne hore oo ku soo fashilmay ama dhibaato hore u soo mari waayay qofkaas oo kale aqoontiisa xagee geynaysa waa aqoon jirto oo qofku hadlaya meeshan soo fadhiisan karto instead aad ka diraysid oo dhahaysid aniga wax kuma hayo waddanka iskaga carab dhibaatooyinkaas naftirkeeda waxay u baahan tahay in la isticmaalo dadka aqoontooda iyo madaxweynayaashii iyo wasiiradii iyo xildhibaanadii hadda hore nooga tegay si aysan waddankii maaragtay aysan meel cidlaa aysan ugu tegin aqoontooda waa baahan dib u heshiisiinteena barnaamijyadeena waa tahay waxaa jira eedeymo oo la xiriira dhanka musuqmaasuqa adigu ma aaminsantahay in Soomaaliya musuqmaasuq ka jiro qof oo taas dah ka saaran yahay habiraatay ma jirto oo musuqmaasuqa dad basi u yaqaanaan aniga waxaan u aqaanaa dee waxyaabaha hadda waddanka ka socdo oo sida naloo sheegayo wixii la sheegana war baa ka jira maogtahay ayadoona markii cadeymo iyo waxyaalo laga haynin laakiin sida runta xiriiryaha guud waddanka Soomaaliya mar uu v o a ama b b c da mar uu warar uu siinayo eedeymahaas iyo waxyaabo cadeymo iyo waxyaabahaan aan haynayo yiri maaragtay oo musuqmaasuq in la musaaqay maaragtay lacaga lagu bixiyay kuraasaha iyo waxyaalihii meelaha lagu sameeyay marka taasna naftirkeeda cadeymo way jirtaa waa wax muuqdo waa wax la wada ogyahay oo aan cidna daahna waad aaminsantahay adigu absolutely way jirtaa haddaad aaminsan tahay sideed ugu dhiirata marka inaad Soomaaliya xilli cod uga doonato aniga alxamdulilah waa tan kuu sheegay anoo yar oo dhalinyaro ah waddankii Soomaaliya aan ka tegay waxaan tegay waddan Sweden waxaan ka soo bartay siyaasadda waxa ay tahay aniga waxaan aaminsanahay siyaasadda inay tahay in bulshada loogu adeego bulshada xaqooda loo raadiyo bulshada waajibaadkeeda looga soo qaado ma ahan aniga inaan maxay ahaato aan jeeb weynahayo oo lacago iyo waxyaalo aan adeegsanayo laakiin waxaan adeegsanayaa mabaadii iyo aragti waddanku wuxuu u baahan yahay visionary macnaha qof himilo leh madaxweyne himilo leh oo raadinayo ummaddaas iyo waddankaas
in loo miceyno ayay u baahan tahay waxaan dhihi lahaa ummad yahay mar kale tooso calankiina wada tiirsho danta guud ku taagsada oo isku wada tanasul qabiilka aad ku tooqdaanbaa idin bada tabaalaha ummadan iyo shacabka in loo turo mooye dagaal ilma taabgalo waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan kusii siqaynaa gabagabada barnaamijka iyaga waxa ugu dambeeyay ee aad bulshada magacaaga u sheegi lahayd maxay tahay ummadda soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto mid yar iyo mid weynba mid caafimaad qabo iyo maaragtay mid xanuunsanba mid nabadgelyo haysto iyo mid aan nabadgelyo haysan mid nolol haysto iyo mid aan nolol haysanba waxaan eebbe ilaahay subxaana wa tacaala uga baryaynaa maaragtay inta jiran inuu ilaahay caafimaad subxaana wa tacaala siiyo inta nabadgelyada la-aanta haysana ee ku nool inuu ilaahay subxaana wa tacaala nabadgelyo siiyo inta gaajaysan iyo in macnaha iyo in gaajada inuu ilaahay subxaana wa tacaala idana ka saaro intaasaan kusoo gabagabeyna waan mahadsantahay waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay waa kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga qaaliga iyo sidaad caawa barnaamijka inoogala qayb qaadatay waxaana filayaa insha allah in barnaamijyo kuwan oo kale aan dib ugu kulmi doono hadduu eebaha awoodi lama yuusan dhihin aad iyo aad buu u mahadsan yahay caawa barnaamijka waxaa marti iigu ahaa yaasiin maaxi macalin oo ah siyaasi soomaaliyeed waxna ka qora arrimaha bulshada waana xildhibaan heer gobol oo wadanka Sweden horena waxa uu uga mid noqday ciidamada ammaanka ee wadanka Sweden sidoo kalena waxa uu ahaa xildhibaan heer degmo haatan waa murashax u taagan xilka madaxtinimada dalka Soomaaliya sidoo kalena waa gudoomiyaha xisbiga midnimada Soomaaliyeed ee fadhigiisu yahay wadanka Sweden sidoo inoo sheegana ah xisbigii ugu horeeyay ee Soomaaliya ay leedahay ee laga dhiso sanadii 2014 guud ahaan inta ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka iyaga dhanka farsamada quruxda badan oo noo kala rogayeen Xasan iyo Emmanuel dhanka duubistana waxay ahaayeen Akeediyaasi Axmed Yuusuf barnaamijka waxa soo saaray saaxiibkay Maxamed Cibaar Diiriye waxaan idila socodsiinay anigoo Axmed Laqaaya tan intaynu barnaamijkan lamid ah ku kulmi doono nabadiino